guddiga dhaqaalaha ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga ee baarlamaanka Soomaaliya oo martigelintan lala soo dahay samaysay una qabatay ganacsatada Soomaaliyeed COVID-19ka aad iyo aad ula dhibaataysnayd waan ugu mahadcelinaynaa iyagoo soo dahay wasiirka wasaaradda ganacsiga wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda iyo mas'uuliyiinta kale ee madaxda ganacsatada oo dhan wada xilku ku fadhiyo guddiga gaadiidka baarlamaanka aqalka hoose dhammaantiin salaanta islaamka ayaan idinku salaamnay anigu waxaan ku hadlayaa magaca aviation industry in Soomaaliya ama air operators Somali air operators and travel business in Somalia ayaan codkooda ku hadlayaa da wixii na soo gaaray halkaas ayaad ku aragteen waana casaan kor u taagan ma wax fasiraad u baahan airline-ka iyo travel industry-guba waa COVID-19 waxa kaliya uu saameeyay wajilbaha dhulka u dhigay caalamka oo dhan corner to corner adigoo Canada ku xanimay ayaad garan karaba mid walba meeshu joogo ku xanimay oo fariistay waad garan kartaan marka business ballaaran oo caalamiyan u socday oo network lahaa oo isku xirnaa oo wada connected ah each other aha oo mar kaliya shutdown noqday wada fariistay meeshu joogo ha joogay waad garan kartaa wixii gaaray gaar ahaan kan Soomaaliya ka jiray oo markii hore tabar yaraa maalgelintiisa aad dareemi kartaan dad Soomaaliyeed ay maalgeliyeen balse 30 sano soo shaqeynay dawladda Soomaaliyeed markay dhacday Somali Airlines khadka ka baxday isla markiiba khadkay buuxiyeen Soomaaliya ay u soo adeegeen maalinta ilaa maanta duruuf kasta ay ku soo shaqeeyeen dhismo kasta iyo nabadoonayn iyo galilid dawladda Soomaaliyeed iyo humanitarian gargaar iyo wax walba way ka soo shaqeeyeen iyo system xawaaladeed aan banking oo ah lacagaha in la qaado wadanka wadan la isaga gudbiyo ganacsatadaas cid shaqaysi ma jirin ilaa hadayna diyaaradaha Soomaaliya ayna shaqayn lahayn nin dhaqaaq lahaa ma jirin ilaa doorkan ay soo gaareen dibkaas ayaa gaaray waxaan mahad gaar u celinaynaa guddiga gaadiidka ee baarlamaanka oo xildhibaan farxiye hadda inaga joogto oo aad iyo aad noola gurmaday aad iyo aad noola shaqeeyay xaqiiqatan 29 March 29 Mars ayaan shaddan u galnay ilaa yoomana hada way nala socdaan wayna noog yihiin wayna nala jaan qaadaan waana guddiga gaadiidka baarlamaanka guddiga dhaqaalaha waa dahay waxaan u leeyahay midda iyada ayaga doorkooda ahayd waxa baabaay waa dhaqaale diyaaradaha Soomaaliyeed waad ku aragteen baakinka ku jiray shimbiraha buulka ay ka sameysteen ukumaha ku dhaleen Ramside waad aragteen cooska ku yaal airport kasta cooska shimbiraha isaga ciyaara cooskay ka soo guratay waxaan meesha iska fadhiyo bilow aan dhaqaaqayna aragtay buulkeedu ku sameystay waa ku kuma dhashay halkaas aad garan kartaan waan u jeedaan halka iyada dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanay diyaaradaha baakinka fadhiya oo khasaaraha iyo qarashka badan loo geystay naga daaya baaking fee baaking fee sabir awra loo qaada baaking fee hanagala weyf garay cid jalaq noo siiso ma jirto ninka reer miyiga ah neefku oo listo oo irmaan markuu guro baadiyo u saaraa suu soo naaxo uu soo noolaado dib u soo rimo haddana warka daba u dhalo mar labaad dawladda Soomaaliya waxaan ka filaynaa maadaama markii aan kobacsanay canshuurta ay naga lisayso suuqloocu uu naga lisay jiray wasaaradda maaliyadda hay'adaha maaliyadda quseeya markaan jabnay oo aan fariisanay bal inay nala gurmadaan noo damqadaan oo wixii macquul ah nala qaban karaan ugu yartahay diyaaradaas meesha fadhiya saacadood way nagu socdaan waan soo kareynay ACMI wax leeyahay nagu socda kurugiya hoteelada degan oo dhaqaaqi karin waxa dhacay maxay la dhijiro coronavirus hoteelkii aan ugu socda bardamkoodii baxaya shaqaalihii oo dhan wada taagan xafiisyada wada shaqeynaya waa travel agent haday airline isku mid way almost lacag ku dhow $146 milyan oo khasaara ayaan dalq niri muddada 3 bilood markii la isu geeyo airline-ka iyo travel agent-da markii la isku daro $146 milyan waana cid ugu khasaaro badan wixii ganacsanay oo dhaqaaqay even if waxaan weynay diyaaradaha parking-kooda in naga la daayo waa qaylinay ilaahay rasuul wasaaraan gaarsiin wasiir iska badaab dag jalaqna loo masii laguma soo bixin lama eegin guddi dhaqaale xitaa nooma soo dhaqaaqin baarlamaanka la guddiga gaadiidku waa mahadsan yahay iyo guddiga gaadiidka aqalka sare wayna barbar taagnaayeen maalna ma dayacin
culays intaa leeg ayaa soo taabtay waxay noqoto ha noqoto COVID-19 waa cadaab xag alla ka soo degay ilaahay uu soo dejiyay bani aadamku ugu talagalay lacallahum yarjicuun lacallahum yatadarracuun ayuu ugu talagalay dadka inay toobadkaanay dib u noqdaan waxay doonaan aaminsanaadaan midabkay doonaan ha lahaadaan in rabbi jiro dhulkan abuuro dadka abuuray ayuu ugu talagalay inay bal isdaba qabtaan oo dib u soo noqdaan muslimiintana si gaar ugu sii saameynaya annaga laakiin erbixinteena waxay tahay la dagaalan COVID-19 aan nirahnaa war milahan la dagaalna meeshaan dhilan cilaajinta COVID-19 la isticmaal la dagaalan COVID-19 erbixinteena kamida oo saxaafadda aad iyo aad ugu baxay alla lama dagaale waxba laga dalbada waxba lagu weydiistaa walayso badan aan taabta xaqiiqatan oo aan la soo ururin karin waxaan ka codsanay dawladda dhaqaalaheedu waa ognahay hadda ku eedimayno maalgelin mayno siisayna kab sida shirkadaha caalamiga ah ee dawladaha dhaqaalaha loo horumaray si diyaaradoodu u bagareeyaan ama ay u kalkaalaan ama ay u kaalmeeyaan dawladdeena ka filmayn in kaalmayso ay iyadoo dhaqaale mayso waan ognahay dawladdu waa isla anaga waayo meel dheer kama imaan laakiin waxaan codsanay si kale in loo kaalmeeyo welina way taagan tahay waxaan codsanay in muddo 24 bilooda nagala dhaafo kharashaadka dawladda ay ka qaado garoomada sida maxaa la dhihi jiray parking fee-ga landing fee-ga navigation fee-ga embarkation fee-ga motorist fee-ga passenger tax-ka iyo service tax-ka wasaaradda maaliyadda luqadda saaday u taqaanaa ayadaana kordhiso waa la socotaa nagalama daynin weli dhaqdhaqaaq noloma siin siday noogu socotaa annagoo 146 milyan oo dollar jilbaha dhulka dhiganay waxaan ku sugan ilaahay kuwa badanna bankruptcy ay sameeyeen suuqa ka baxeen waayuu ku soo noqoninba sidoo kale waxaan codsanay shirkadaha handle agent ee ka shaqeeya waa meel hadda nagala kaalmeyn kara waay qodobadan ayaga wali way taagan yihiin shirkadaha handle agent ee ka shaqeeya garoomada ka howlgala 150 iyo dawladdu soo fargeliso noloo daaya in muddo ah annaga 24 bilood codsanay laakiin wixii suuragal ah safar waxna gado waxna garay Soomaalidu tiraada wixii suuragal ah oo la deyn karo in nagala daayo balse aan u soo kabanno waan balqaali u soo celin maadaama dhinaca kale ay jireen baymeed dhinaca kale waxaan dalbanay in gabi ahaan ma nagala joojiyo royalty saaran shidaalka diyaaradaha jet fuel-ka oo shirkadda Faafoore ee Turkida ee garoonka howlgashay ay na saarto in qaad oo litirkii 0.6 ah 0.6 shidaalka lacagta iyaga ay qaadaan oo shidaalku u saaran tanka waxaan u malaynaa waa 1274 litir waay halkii tan oo diyaaradda ku dhaca litir maaya tank laakiin ayaga per litir ay waxay ka qaataan 0.6 markuu shidaalku ku dhaca 0.6 oo 0.6 ay ka jaargareyn ay ka qaataan waxaan awoodi karnaa bixin karin waay canshuur dawladda ay ka qaado كل وزارة مالية وسعتها ومن أنت كجوان واي شغالك أي صار شركات شغالك أي صار مركز شركات شغالك ويبين أنه end users أهنا أو شغالك استعمال وارد منها شركات شغالك ديارها كشقين نبكي نسوق جاري مثل ما جاري أي اللي جمعه لو قالوا نفسه ويجاري لو مش شغالك أي كيان هانك يسجله مدلوا ليه ولا بالاستعمال شغالك ديارها كان قوارد لما يضمن مدلوا ليه لو قليها إلا الاستعمال وديارها الوسع هذه مدلوا الاستعمال وايو waxay galayaan qaanuun kale qaadanayaan sharci kale qaadanayaan ayagoo dhibku waa gaaro ko shidaalka intaas oo kale qolin ka tirin ka shaqeynay dhibku kale gaaray ma rabo inaan warka badiyo warkayga mid ururin karo ma ahan guddiga gaadiidka dhaqaalaha ee baarlamaanka aqalka hoose hadda soo istaagay arrintan ayada ah waxaan u maleynaa Mars iyo waxa maan joognaa waa Agoosto oo dhamaada u soo istaagay arrintan ayada inta ay ka qaban karaan guddiga gaadiidka inay gacan siiyaan oo wixii وزارة المالية الدولة نجزر ونقول ساعدة كرو نقول ساعدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته